madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa galinka dambe galabta waxa uu gaaray magaalada Addis Ababa caasimada dalka Ethiopia. wafdiga uu hogaaminaya madaxweynaha Xasan Sheekh Maxamuud ayaa garoonka diyaaradaha magaalada Addis Ababa waxa ku soo dhaweeyay ra'iisul wasaaraha dalkaasi Ethiopia Abiy Ahmed. intaas kadib madaxweynaha iyo wafdigiisa ayaa loo soo galbiyay xarunta lagu arrimiyay dalkaasi Ethiopia isagoo madaxweynuhu halkaasi kulan kula qaatay madaxda ugu sarreeyay dalkaasi Ethiopia ugu horeeyo ra'iisul wasaare Abiy Ahmed. labada mas'uul ayaa kulankoodan waxa la soo warinayaa in diirada lagu saaray xiriirka iskaashiga labageesoodka ka dhaxeeya wadamada Soomaaliya iyo Ethiopia iyo sidii labada wadanba ay iskaga kaashanayeen dhinacyada amniga siyaasadda iyo sidoo kale arrimaha gobolka. madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud iyo ra'iisul wasaare Abiy Ahmed ayaa sheegay muhiimadda ay leedahay si ambaqaadida wada shaqaynta ka dhaxaysa labada wadan ee Soomaaliya iyo Ethiopia taas oo ku dhisan ixtiraam daris wanaag iyo sidoo kale danta guud ee labada dawladood si loo xaqiijiyo xasiloonida geeska Afrika. madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa dhowr jeer sidaan kala safar ku tagay dalka Ethiopia tan iyo markii la xaliyay khilaafkii diblomaasiyadeed ee labada wadan soo kala dhaxgaray koodii bishii January ee sanadkii 2024 kaas oo ka dhashay markii ra'iisul wasaare Abiy Ahmed uu heshiis sharci darro ula galay madaxweynihii maamulka Soomaaliland xilligaasi Muuse Biixi Cabdi taas oo dawladda federaalka Soomaaliya si weyn uga carootay. asayeeshee Turkiga oo dadaal dheer geliyay halka gaarista arintaasi ayaa ugu dambeyntii ku guuleystay waxaana intaas wixii ka dambeeyay labada wadan Soomaaliya iyo Ethiopia waxa xiriirkooda mid soo hagaagaya.